muhiimaddu waxa ay tahay marxaladda maanta dalka uu marayo qofka anagu mas'uuliyad baa naloo egmaday mas'uuliyadda naloo egmaday oo kitaabka naloo mariyay waxa waaye marxaladda hadba saacadda dalka uu marayo inaan ummadda Soomaaliyeed la socodsiino wax ka qabadkeeda iyo wax ka dhinkeeda meesha uu marayo aan raaxno war waxaasna waa qabsameen waxaasna way qabsami waayeen afartii sano oo mandate-ka aan u haysanay oo naloo soo doortay anagu waxaan mathalnaa dawlad goboleedyo khaasatan aniga waxaan ka soo jeedaa dawlad goboleedka Jubbaland afartii sano la soo dhaafay 3 sano iyo barkii hadda la soo dhaafay marxalad adag ay soo wajahday waxaana sabab u ahaa xukuumadda maanta dalka ka talisa oo horseedka ku yahay madaxweyne Maxamed Abdullaahi Farmaajo isaga ayaa loo egmay dalka isku hagadiisa isku wadistiisa iyo mandate loo siiyay oo ku doorano codka shacabka Soomaaliyeed uu ku helay waa nasiib darro madaxweynihii ugu shacbiyada badnaa markii la doortay oo ahaa wixii uu ku soo loobin garay uu ku soo galay oo ballan qaaday hal qodob uu ka fuliyay ma leh fulintiisa waxa ay noqotay in hal maad ku guuleysto tilmaami karnaa jirta maadada waxay tahay in uu ku guuleystay in baraha bulshada uu abaalmarin ku bixiyay sidii daraad media aad ka arkayseen hebel wax qabadkiisa baraha bulshada Facebook comment badan buuxiyay hebel wuxuu ku guuleystay baraha bulshada inuu dadka aad uga caayo waxaan hadii hadda waad ka been sheegaysaa leedahay in daraad wada arkayseen shahaado sharaf lagu bixinay madaxweyne Farmaajo looma igmanin inuu baraha bulshada in dadka laga caayo madaxda Soomaaliyeed laga caayo laga aflagaadeeyo dawlad goboleedyada laga dhibaateeyo taa waxa sabab u ah wixii uu ballan qaaday ayuu daba maray waxaan ahayn buu aaday wax uu san sheeganin inuu qaban karo ayuu qabtay waayo baraha caayada bulshada baraha bulshada in madaxda Soomaaliyeed laga caayo in madaxda dadka Soomaaliyeed laga dhibaateeyo aflagaada dadka la daba istaago ayuu muhiimadda saaray ma saarin markuu noo kaambeen gareynaa wuxuu ahaa dalkan amni baan ku soo celinaya tuutaan gashanaya nabadoon baan noqonaya koofiyad baan gashanaya qof kasto Soomaaliyeed wax tawanay waa horfariisanaya waan qancinaya gogashiisa ugu tagaya tiida ahayd ilaahay ma haleelsiinin way daba martay waxa uu ogaaday maanta uu mandate-ka uu ka dhamaaday meesha ay taagan tahay waxa loo balansanaa shir iskugu imaanay dawlad goboleedyada zoom buu kula shiray aqalka sare ayaa wuxuu go'aansaday arinta caqabadaha dalka ka jira iyo dhibaatooyinka dalka maanta ka jira inuu wax ka qabto wixii ummadda Soomaaliyeed iska sugaysana uu bidhaamay aqalka sare waad maqlaysid sida gudoomiye Cabdi Xaashi uu sheegay marxaladda dalka maanta uu maray badbaadana uu baahan yahay taa ayaa marka sabab u ahayd in madaxweynihii uu ogola qof wax qaban kara ama dalkii badbaadin kara gadaashiisa uu ka arko waa ku dhibaato Soomaalidu waxay tiraahdaa waxay ilaahay si ilaalma ka dhan